dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaan ka bacdi waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirkan la qabto marar badan oo lagaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo saaxiibada Soomaalidu lagaga hadlo Soomaaliya iyo xaaladda maraysa iyo wixii markaas laga qaban karayo. Waxaan rabaa inaan marka hore ka hadlo topic aan ku qornay oo security ku saabsan. aan isleeyahay muhiim buuna u yahay Soomaalida iyo beesha caalamkaba waayo security-gu haddii uuna jirin wax badan oo kale ma jiri karayaan. waxaan rabaa mar labaad inaan u mahadceliyo dhammaan dowladaha ka qayb qaatay arrimaha amniga Soomaaliya ama kuwa ciidamada keenay ha noqoto oo wiilashooda iyo gabdhahooda ay naftooda ku waayeen ama ha noqdeen kuwa deeqda bixiya. waxaa kaloo rabaa inaan xuso haddii amni wax laga qabanayo waxa ugu muhiimsan waa shacabka Soomaaliyeed oo mahadcelin u baahan sababtoo iyaga lafdhabar u ah mar walba markii la yidhaha amniga waxa laga qabto qofka ugu horeeya ku dhacayo waa iyaga. waxaan marar badan ka hadalay oo wax la iska weydiiyey arrimaha amniga iyo siday wax u socdaan. waxaa laga hadlayaa bisha December ee sanadka 2021 in laga hadlo sidii ciidanka Soomaalidu ula wareegi lahaa ciidamada AMISOM ay uga wareegi lahaayeen. waxaa isweydiin leh ma haynaa waddadaa iyada ah. waxaa ka horreysay marar badan laga shiray laga soo bilaabo shirkii London baydhabo kulligood in la tayeeyo oo la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh awood u leh inuu hanto amniga dalka. waxaa ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka booliska daraawiishta dowlad goboleedyadu ay leeyihiin iyo dhammaan laamaha amniga in la tayeeyo lana dhiso laguna talagalo waddanka gacan ku hantiisa. waxaa ka horeysa in ciidamada AMISOM ay hawl galaan oo ay isku dayaan inay xoreeyaan deegaanada ay shabaabku joogaan si ay u suurto gasho inay gaari karaan in lagu wareejiyo ciidanka Soomaalida ah wax loo diyaariyey iyaguna marka ay si aanbaqaadi karaan. su-aashu waxay tahay ma la dhisay ciidankii Soomaaliyeed ee loo baahnaa sidii loo baahnaana ma loo dhisay? AMISOM ma dagaal gashay oo ma ka xoreysay shabaab deegaanadii oo ma u diyaarisay Soomaalida ciidankeedu inuu la wareego? international community-gu iyo kuwa deeqaha bixiyaay ma la xisaabtameen waxa ay bixinayaan iyo mar walba meesha ay marayaan iyo sida ay tahay? markaan intaa isku daro waxaan odhan karaa waxaa taagan xaalad adag oo wax walba marka shirarka la fadhiyana si fiican ay u dhacaan marka shirarka laga tagana warqadaha lagu qoray ma dhaafaan. waa kow dowlad Soomaaliyeed oo ciidankii dhisaysa oo la xisaabtamaysa AMISOM oo ku talagelaysa inay barnaamijkaas siduu u socdo u qabatay waxaad moodaa shaqadeedu inay saas ka hooseyso. waa laba African Union way ku adag tahay inay la xisaabtanto ciidamadeeda ka jooga Soomaaliya ee howlgala oo laga yaabo 5 sano 4 sano 3 sano in ciidan hal dhufays ku jiro hal maalinna xataa uunan batrool samaynin 2 kilomitir. waa ta saddexaad beesha caalamka oo aan mar walba isweydiinaynin waxaan faraha badan ee bixisaan away fruitskii iyo midhihii uu dhalay. waxaan odhan karaa AMISOM mayna gaadhin meeshii wax lagala wareegi lahaa Soomaaliyana uma diyaarsana waxay la wareegi lahayd beesha caalamkuna mayna la xisaabtamin waxay bixinaysa meeshay ku baxayeen. arrintaas waxaan is leeyahay halkaas ayay ciladeedu tahay. waxaa soo raaca shabaab maanta laba dhinac markaan u kala qaado xagga hoggaanka iyo dhismahooda waa waqtiyaday ugu hooseeyeen. xagga mooralka dhaqaalaha iyo hoggaaminta shacabka saameyntii ku leeyihiinna waa markii ugu sarreysay. mana aha dad doqomaa waa dad ka faa'iidaysta jaaniskooda laakiin waxaad moodaa annagu inaan beerdaraynayno jaaniska aan kula dagaalami lahayn shabaab ee shacabka maanta gacmahooda ku jiray dhibaatada ku hayaan looga xoreyn lahaa oo aan annagu ku mashquulsannahay hadal iyo wax badanoo macno sameyneyn. maanta
markaan xogta aan ka helayo dhab u sheego ma laha hoggaan adag oo maanta qaban karaya sidii raggii ka horreeyay ay u waxaan jireen ma laha ciidankoodu keliya waxay isticmaalaan waa qaraxyo iyo wax lamida laakiin nugeylka annaga soomaalida ah iyo ciidamada amisom ee nala jooga nugeylka iyaga waxay siisay inay helaan xilli ay iyagu wax walba ka faa'iideysan karaan waddanka oo dhanna say rabaan ay u maamuli karaan taa markaa waxaan rabaa inaan si dhaba u idhaahdo arrinta amnigu waxay mar walba ku soo urursataa oy shaqadeedu tahay inaan ka hadalno hadalkana intaa lagu daayo fadhiyadana wax fiican la isugu sheego waxaa hubaal ah dhaqaalaha ugu badan maanta soomaaliya way ka qaadaan oo way maamulaan oo waxay gaadheen inay dadku iyaga u xuguntamaan oo garta iyagu ay u qaadaan taas marka waxay la tahay arrinta amniga ha laga sheega waxa dhabta ee jirta oo warka fiicanan isu sheegaynaay anoo aada idiin ixtiraamaya ha noqdo mid la fuliyo oo laga daba tago ma muuqato 2021 December wax la kala wareejin karo amisomna uma diyaarsana dowlad soomaaliyeedna uma diyaarsana markaan dowladda soomaaliyeed soomaaliya oo dhan waan ka hadlaya maantana dhibaatada iyo meelaha ay ku hayaan iyo habeen walba waxa loo taagan yahay waan garanayna taa markaan ka gudbo waxaa amniga qeyb ka ah arrimaha siyaasadda oo iyadana aada looga hadlayay doorashooyinku dowladaha waaweyn ee caalamka ka jira ee waxay ka noqdaan dhibaatooyinka marka doorashooyinku dhacayaan qeybta ka ah ee mushkiladda keena ee dhibaatada qeybta ka ah ee inta badan ee la isku khilaafo oo dowlado waaweyn oo boqolaal sano election soo sameynayay way ku waxaysan tahay maxaad u malaynaysaa soomaaliya oo sanadihii lasoo dhaafay doorashaduna ay ku tahay barbarasho waxa keliyay deganaanshaha iyo xasiloonida siyaasadda ku haysataana ay tahay in 4 sanaba doorasho dhacdo xukunka la wareejiyo deganaansho ay ku dhacdo waan gaari doonaa marxaladda aan doonayno iyo meesha aan rabno inaan mustaqbalka hiigsano laakiin waxa dhabta ee taalla waxay tahay haddaynan doorashadaas sida loogu talagalay u dhicin oo mar walba tuhunka cidda kursiga haysa la tuhmaayey damcu wuu ku jiri karaa cidda kursiga markaa ku fadhida laakiin waxaa asala broseska doorashada loo maraya inay ka banaanka ka noqdaan waxay ka shaqeeyaan inay noqoto kambeynkoodu siday ku soo noqon lahaayeen iyo doorashada kambeynkay u gelayaane ayna noqonin broseska intii la xidhxidho in laga dhigto harqaan sidii aan ku soo noqon lahaa baan waxu talanaya aan u cabiranayaay oo waxa dhibaatada ugu badan keeni karaysa una baahan ma aha waddanka iyagu mid xamili karaya waxyaalaha qaarkood waxaan xusuusnahay 2016 xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha oo damac badan uu kaga jiray maysan dhicin haddana faragelin iyo saameyn ay ku yeesheen dowlad goboleedyada iyo sida loo qabanayo iyo guddiyada siid iyo fiid iyo in la maamulo midkoodna maysan jirin waxaan rabaa inaan bogaadiyo sida saaxiibadii qaarkood ay ka hadlayeen caqabadaha jira waxaa inta badan hadda indhaha lagu soo taagi laleeyahay Axmed Madoobe iyo Jubbaland guddi mayna soo dirin shirkii lagu heshiiyey September goobjoog bay ka ahayd waxbaa lagu heshiiyey waxaan rabaa inaan intii naas oo dhan hortiina ka qiro waxaanu ku heshiinay heshiiskii aanu ku galay 17 September wuxuu ahaa in la qabto doorasho technically aan isla sheegnay sida ay tahay state walba 2 gobood lagu qabto guddi la sameeyo 3 guddi heer state heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaan cabasho ka muujinay arrinta gobolka Gedo oo ka tirsan 3 gobol ee Jubbaland ka kooban yahay taasoo macnaheedu uu ahaa in doorashada la qabto deegaan walbana waxa sharcigu uu siinayo uu u qabto doorashada waxaa koow ahayd muddadaas 3 bilood ku dhow heshiiska aan galay principally buu ahaa mabdi'iyan in la xaliyo arrinta gobolka Gedo gobolka Gedo maanta kama jiro maamul Jubbaland waxaa haysta jabhado iyo maleesiyaad ciidana oo loo diray waxaad kala socon kartaan media maalin walba jawaabaha laga bixiyo iyo dadka ka hadlaya ma jiro hal mas-uul oo Jubbaland ka soo jeeda oo mas-uulka oo gobolkaa jooga calaamadda la isticmaalayana waa tii Jubbaland
waxaan dowladda in badan kaga hadalay arrintaa ha la xaliyo dib u heshiisiin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dowladdu inay maamulkii kusoo wareejiso dadkii maamulayay maamulkii Jubbaland waxay u baahan tahay dowladdu in markaa dib u heshiisiin loo sameeyo ciddii khilaaf dhex yaalla markaasaa waxaa la qaban karaa doorasho Jubbaland ay maamulayso dowladda dhexe roolkeeda ay ku leedahay sidaana ay ku hirgeli karayso waxaan rabaa inaan sheego oo aan idiin caddeeyo guddiyada way noo magacaaban yihiin doorashadu inay waqtigeeda ku dhacdaan rabnaa 3 bilood ku dhowaad baa la joogaa maxay qabatay dowladda federaalkii ilaan iyadaa gobolkii gacanta ku haysa maxaa go-aanay soo jeedisay ma ka gaadhay inay ciidamadii ka bixiso ma ka gaadhay dib u heshiisiin in la qabto ma ka gaadhay Jubbaland inay maamulkeeda kusoo wareejiso aan idin weydiiyo markay Puntland doorashadeeda 2 meelood ku qabato ay Galmudug qabato ee Hirshabeelle qabato ee Koonfur Galbeed qabato Jubbaland doorashada ma waxay ku qabanaysaa hal meel meelasha kalena ciidan ay dowladdu u dirtay yaa loo dirayaa qabanaya waxaan rabaa mudane ra'iisul wasaare adiga iyo madaxweynahaaga iyo wasiir ku-xigeenka intaad isku noqotaan ha la qeexo Jubbaland waxay meesha wax ku qabanayso gobolka Gadaba Jubbaland baa mise ma aha xaq ma u leeyahay maamulka Jubbaland inuu qabto doorashada ka dhacaysa gobolka Gado mise dowladda federaalkii qoraal bay soo saaraysaa ay leedahay gobolka Gado waanu la wareegnay iyagoo sababeynaya sababta uu la wareegay waxaan rabaa inaan markhaati gashado beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeedba war wixii aan ku khaldannahay naga qabta diyaar baanu nahay deegaanka ama aan maamulno ama wax kala hala sheego arrinta doorashooyinku waa xasaasi waxay keeni kartaa doorashadoo la musuqmaasuqo ama barnaamijka iska horkeen lagu sameeyay dib u dhac ku yimaada dowladda Mareykanka oo intaad aragteen soo jirtay waad arkaysaa jiitanka ka dhacaya maxaad u maleynaysaan Soomaaliya oo aad garanaysaan 2017 February 3 madaxweyne mid la doortay iyo 2 ka horeysay gacmaha ay qabteen oo la istaajiyay waxay ahayd sida isbuudka ay doorashadu ay u dhacday hadday taasi dhici weydo caqabadeeda iyo mushkiladeeda ay leedahay waxaa soo raaca waxaa jira musharaxiin iyo dad cabanaya arrinta Somaliland waa la soo qaaday waa sax waa la cabanaya waxaan rabnaa maalin horena waan ka hadlayay guddoomiyaha aqalka sare waa mas-uulka ugu sarreeya dadka ka soo jeeda deegaankaas xaq wuxuu u leeyahay isaga iyo xubnaha kaleba tashiga ay leeyihiin in wax laga siiyo waayo isteydadii bay matalayaan inuu matali waayo meesha uu u magacaaban yahay waa khalad waxaan qabaa arrintaa in dib la isugu noqdo oo dadka ka soo jeeda deegaankaasi tashi la isugu keeno mas-uuliyadda la ixtiraamo waxay isku waafaqsan yihiin ay ka hadlaan oo meeshaa la geeyo dowladda dhexana ay ka dayso faragelinta dheeraadkee lagu haysto waxaa taalla cabasho ay soo jeedinayeen musharaxiinta iyo kuwa kale oo laga hadlayo guddiyada heer federaal dadka ku jira siday yihiin in la qanciyay mudan yihiin sababtoo waddankeennu ma xamili karayo oo ma qaadan karayo madmadow jira in intii wax lagu darsado la yidhaah waan ka gudbaynaa waan soconaynaa ra-iisul wasaare Rooble maanta adaa prime minister culayska shaqada aday kugu dhacaysaa ma tihid musharax waxaa ila quman roolka aada leedahay inaad qaadato waxay ahayd muddada intaa la-eg ee 3 bilooda hadday soo baxday inay cabasha jirto in wax la isweydiinayo in la isu yimaado la wada fadhiisto weliba markhaatiyaal beesha caalamka ay ka noqoto intii shirar la qabto in la isweydiiyo la maxaa khaldamay xaggey wax ka socon waayeen say wax u socon waayeen taasi waa shay muhiima waad ogtihiin marka doorasho iyo xaaladdan oo kale ay jirto waqti waa inagu socda shayga asalkii wuxuu yahay in tashigeennu bato wadahadalkeennu bato la isumaatinku bato su-aalaha la isweydiiyo la isqanciyo aan xallino mujtamaca ina sugayahay cadowga shabaabka inagu xeeran environmentiga aan ku jiraa noocuu yahay waxa iman karaya kulligeed waa wax u baahan sida ay tahay in loo derso waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa arrinta doorashooyinka Soomaaliya dagaalka shabaab Soomaaliya dib u noqota
civil war iyo ina dagaal qabiil u dhaco intaba way sababi kartaa ha laga taxadaro yaan la fudaydsanin kulamada ha la badiyo xogaal ha la isu noqdo beesha caalamkana waxaan ka codsanayaa inay korjoogtadana badiso lana socoto wax walba oo dhacaya ase Jubbaland position waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan doorashada diyaar u nahay inaan guddiyadii diyaar loo yihiin waxaan tabanaynaa inay tahay in la xaqiijiyo gobolka Gado meesha uu ka tirsan yahay iyo maqaamkiisa waxaan qirayaa dowladdu waxay ahayd inaan markaan heshiiska mabdi'iyan gaadhnay inay qaado tallaabooyinka la gudboonaa dib u heshiisiin ciidanka la wareejiyo Jubbaland oo maamulkeeda lagu wareejiyo iyo doorashadii aan isu diyaarin hadday intaasi dhici weyday markaa malihin annagu eedda Jubbalandna ma laha eeddaas iyadana maaha cidda bixin doonta beeca ay ku baxdaay ha qaadata dowladda federaalkii mas-uuliyadda aan isu nimaadno diyaar baan u nahay aan wada hadalno intaasaan ku gebagabayn lahaa arrinta doorashooyinkana siday tahay ha loo fiiriyo Jubbaland sida kale xaaladda shabaabku aad bay u culus tahay waxaad ku garanaysaa shabaab culayskiisa maanta haddii meelihii bannaanaa ee hadda galmudug oo kale iyo culeysyadaasi ay ka jiraan maxaad u malaynaysaa dhulkii duurka ahaa iyo dhulkii buuraleyda ahaa iyo dhibaatada ka iman karaysa fadhigani wuu fiican yahay wax fiican baa laga hadlayaa laakiin aan hoos u dhaadhacno oo aan xisaabtanno oo waddankani yuuna dib u noqon aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu